maanta halkan saxaafadda waxaan ugu yeedhnay inaanu ka hadalno garsoorkii Soomaaliland oo awoodi kari waayay inuu u garnoqo shicibkii iyo dadkii magaca lahaa tan iyo bishii afraad 8deedii waxa xidhan dhowr eedaysane kuwaas oo 3 ka mid ah qareenno wahayn kuwaas oo kala ah Maxamuud Cismaan Khayre Cabdiqaadir Nuur Maxamuud iyo Baashe Xasan Maxamed kuwaas oo midna abwaan yahay midna macallin yahay saddexdaas eedaysane sida arkaysaan xaashireeda waxyaabaha lagu eedeynayo waxa ka mid ah iyagoo samaystay iyagiyo group kale isku beelihiin WhatsApp la yiraahdo haldoorka garxajiis in ay ka shaqeynayeen qarannimada iyo dhaqaalaheeda inay curyaamiyaan eedaasi marka gudaha loogu dhaadhaco waxa ugu badan ay ka hadlaysaa waxa weeye waxa aad ka hadasheen Som Cable in xarkiisa wax la yeelo midna eedaysanayaashaasi lama laha adaa wax yeelay hase yeeshee waxa la leeyahay waa ka hadasheen haddaba markay maxkamaddu halka marayso eedaysanayaashaasi oo tan iyo bishii afraad xidhnaa qaarkood way xanuunsanayaan macaan bay leeyihiin waxa maxkamadda gobolka looga qaaday damaanad sida ku cad qaraarka ka soo baxay maxkamadda ee ku taariikhaysan 27 bishii shanaad qaraarkaasi waxa ehelada iyo cuqaal iyo salaadiinba la dhigay laba fayl oo loogu talagalay dhammaan wixii khasaare cid sheeganayso iyagoon iyaga si toos ah wax loogu sheeganayaa jirin haddana culaysin darteed markii la arkay in culaysin ay arrintu tahay waxa la dhigay faylal guri oo la yiri wax kasta oo yimaada annaga damaanad qaadnay maxkamaddii gobolku way sii deysay waxa la yaab ah isla habeennimadkii iyadoo aanu jirin amarkii maxkamadda wax buriyay oo maxkamad ka sareysay waxa isla habeennimadkii guriyaha ugu daatay oo waliba qaarkood 4 habeennimo guriyaha kala soo baxay booliiska kuwaas oo yiri waa amar naga sareeya waxaanu subaxii dambe ku soo kalahnay maxkamadda racfaanka oo aan niri waxaan u baahanahay qaraarkii lagu jibiyay qaraarkii maxkamadda gobolka taagnaa runtii waxa aan la yaabnay baa dhacay oo ah maxkamaddii rafcaanku iyadoo aan jirin qaraar alaale qaraar ay soo saartay oo qaraarka hor ku burisay inay hortayda ku daabacday mid imika noo qorayso oo tiraahdo in annaga amarnay way qaraarka ku amartayna siiya hortayada ayay ku qorayeen oo ay in qaraarkii dambe ku sameeyeen runtii arrintaas arrin ceeba oo fadeexad ku ah garsoorka Jamhuuriyadda Soomaaliland weeye waxa soo dhan waan u dhabaraadeegnay eedaysanayaasha eheladooda iyo annagoo qareennadiiba waan u dul qaadanay waxa dhacay qaraarka ka dambeeyay ee maxkamadda rafcaanku soo saartay waxyaabaha la yaab kale labadii qaraarba wanaga haya wuxuu ka koobay 3 qodob waxa lagu soo daray iyadoo maxkamadda rafcaanka ceeb ay tahay in la soo saaro qodobo cusub oo kuwii hore ahayn ee laga damaanad qaatay laba qodob oo kale oo meel allaala meel ay kaga dartay kuwii loo haystay aan ahayn ayay maxkamadda rafcaanku noogu dartay ujeedadu waa maxay ugu daraysaa waa labada qodob ee hore ee lagu eedeeyay damaanad sharcigu siinayo qofka oo constitutionally oo qofku xaq u leeyahay damaanad u qaato ayuu ahay si taa loo culaysiyo oo meesha looga saaro inuu qofkii yeesho damaanad ayaa qodobo cusub oo xaraan ah maxkamadda rafcaanku ku dartay labadooda qaraar midna qaraarna mid lama mid aha waa kala qodobo waa kala duluc mid wuxuu ka hadlayaa cidda samaysato ururo qaab xataa argagixiso kala waxa WhatsApp-ka lagu wada xidhiidhayo ayaa laga dhigay inay yihiin qaab argagixiso iyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland inay wax yeelayeen marka inta laga yimaado waxa dhageysigii maxkamaddu markuu bilaabmay dhibaato fara badan oo xafiiskii xeer ilaalinta ee eedaysanayaasha isagu soo eedeeyay hogaaminayo ayaana maxkamaddii kala kulannay haddana taasi anagu qaranka u turayna waxba kama naan oran waayo xaaladii doorasho kacsaneed iyo waxyaabaha ayaan anagu laftarkaygu diidanay inaan waxyaabaha qaar ka hadalno inta marka laga yimaado waxay noqotay wixii lagu soo eedeeyay baan iska difaacno ee qareennadii haddaan nahay hanaloo soo gudbiyo dhammaan wixii cadeymaha maragyadii maxkamadda la hor keenay mooyee haddii fiidiyo tahay ay lahaayeen fiidiyo waanu haynaa hadday tahay muuqaalo kale lahaayeen waanu haynaa hadday tahay dokumentiyo
waxaas oo dhan oo xafiiska xiraantu af ka sheegayo hal mid waa la diiday in lagu soo wareejiyo waa markii ugu horeysay taariikhda garsoorka Jamhuuriyadda Soomaaliland caddeymihii ahayd qofka eedeysanaha inuu iska difaaco qarankiisa loo diido waxaana la yiri in ku soo wareejin maayo siyaasa ku galeysaan waliba idinku qareenadii hadli maysaane iyaga hadlayo istifaacaya war haddaanu qareenanahay oo inaan anagu hagaynin qofkaanu qareen ka wahayn oo inaan helaynin dukumentiyada kaga difaacayno maxaanu samayn karnaa maxaanu qareena ka nahay ma qareen maxlalaan noqonaayo maxkamaddu inuu qurxiya inuu dhex fadhiyo taas baan aragnay ceeb tahay waxyaabaha kale dhaca waxa kamid ah dacwadu ma bilaabmi karaan dhibanalaan waxaanu codsanay bal cid soo dacwootay oo Sumkeebel iyo Maxamed oo Saciida in loo yeero Maxamed oo Saciid waa la diiday garsoorka in la hor keeno garsoorka Soomaaliland uu ku dhiiran waayay Maxamed oo Saciid samaan u diro waxaanu ku nimaa Maxamed oo Saciid ka yimaado jamaa managerkooda u yeera waa la awoodi waay waxay noqotay in la operational manager hal idinku yeero war operational manager kan miyuu dacwooday miyuu yahay ka waxaan ku qoran warqadahan aan hayno waa maya marka waxaan leenahay oo saaka halkan saxaafada ugu yeednay garsoorka Soomaaliland oo intaas oo nuqul oo mid aan lahayn mid ahayna uu ka soo baxay isla markaana markii ugu horeysay taariikhda nimanka soo xidhan ilaa bishii afraad niman isla markaasina taariikhda markii ugu horeysay loo diiday in dukumentiyada eedeysanayaashaasi la tuso gibiyahaantoodba waxaan saaka halkan ugu yeednay inaan bulshada Soomaaliland u cadeyno in maanta garsoorka Soomaaliland uu tahli kari waayay ganacsatadii oo Maxamed oo Saciid aan ka xusaayo waayo qofku u dacweysanahay yahay waxa qasabay in maxkamadda isagu hor yimaado waxa qasaba dhinaca kale inuu dhammaan wixii cadeymahay qofka liddi ku ah inaad hesho maanta garsoorka Soomaaliland wuu awoodi kari waayay inuu Maxamed oo Saciid garsoorka hor keeno wuu awoodi kari waayay ama si cad buu cadaalad darro ugu bareeraya inuu Maxamed oo Saciid iyo Sumkeebel waxa ay doonayso annagu xataa qareenadii nagu barashargeeyo garsoorka Soomaaliland aan maanta waxaan amarka Maxamed oo Saciid ahay aanu ka soconaynin taasi markaanu aragnay waxaanu doonay ummadda Soomaaliland annagoo qareenaa maxlal noqon mayno cadaaladda qurxiya hadaad ka noqoto kamid un baad inta cadaalad darrada falaysa inaanu taa annagoo fadhino oo eedeysanayaashii laftirkoodii khiyaamayno iska dhinac fadhino maxkamad ku socota sifo baadila oo sharcigii baalmarsan inaanu fadhinaanu diidnay saas darteed waxaanu gaansanay ummadda Soomaaliland iyo saxaafadda inaan u cadeyno gabi ahaanba kiiskaas inuu yahay kiis Maxamed oo Saciid oo afduuban annaguna ka qareenahan inaan maanta laga bilaabo dacwadaas oo tan iyo bishii afraad soo jiitamaysay inaanu ka baxnay anigu waxaan kulay ku darayaa in yar ujeedadeeda ugu weyn waxa weeyaan inaanu maanta halkan u cadeyno ama aanu ugu baahino in qareenadaas in dacwadii aanu qareenada ka ahayn ee ay ku eedeysnaayeen eedeysanayaha qareenku hore sheegay inaanu halkaasi kaga baxnay sababaha aanu kaga baxnayna ay tahay in markii maxkamaddu ay xeer ilaalintii oo cadeymihii ay lidka ku ahaa eedeysanayaashaasi sheegtay inaanay bixinaynin amba aanay nagu soo wareejinayn amba aanaan arki karin si aanu iskaga difaacno kuwaasoo yani ay muuqanayso dee inay ahaayeen cadeymo ceebaysan ama dee dhaliila leh oo aan caddayn karayn eedaha loo haysto muwaakiliintayada waxaan ugu dhacday arrin aanaan filayn oo ah in maxkamaddii dee noo raacday xeer ilaalintii oo ay asturtay cadeymaha si ceebaysan ama dee dhaliilaha leh ee aan caddayn noqon karin si loo asturo in la yidhaahdo laydinkuma soo wareejinayo oo ma arki kartaan taasaa waxay keentay markaas inaanu annaguna hakinno ama aanu ka baxno dee dacwaddii oo aanaan dee maadaama aanaan wixii aanu iska difaacaynay cadeymaha ahaa aanaan haynin dee waxaanu difaacnaaba ma jiro oo waxaad mooddaa in si dadban ay maxkamaddu roolkayagii iyo doorkayagii qareennimo ay meesha uga saartay yani si otomaatigaba ay meesha uga saartay saasaanaanu bulshada iyo cid kastoo danaynaysay dacwaddan amba la socotay geedi socodka dacwaddan inaanu cilaaminaynaa inaanu sababtaasi uga baxnay oo aanaan sii wadi karin waxaanu ka tari karnaana aanay jirin maadaama
ay xeerlaalintii maxkamaddii isla qaateen in sir laga dhigo oo la asturo oo la dado waxaa caddayma ku sheeg ah ee ceebaysan ee la qarinaayo taas waa taa dee dulmiga kale iyo kolley muddada ay xidhan yihiin iyo waxaana qareenkii horaa ka hadlay markaa intaasaan aniguna ku soo koobayaa assalaamu calaykum